dooyinka maalmahan aynu ogeyn waxana dad badan ay ogaayeen saddex dhacdo soo qaadanaya wiigi dhaweyd shir cilmiyeed bay jaamacadu soo bandhigaysay jaamacatu najah ila 10 dawladood baa ka qayb galay urdun ciraaq khaliij dad badan baa cilmi baaris soo gudbiyay xagga zoomka iyo online ka laga galay ragii soo gudbiyay nin kamid oo carbeed ayaa cilmi baaristiisii soo gudbiyay maalinkii shirku dhacayay oo isbuucii hadda dhamaaday oo cilmi baaristiisii la hayo oo maalinkii shirku bilaabmayay oo bari ah uu sugayo soo diyaarinayo cilmi baaristiisii inuu jeediyo oo aanu sugaynaa leeyahay ninkii waa dhintay ila rahmatillah saasu ku socdo waxbuu diyaariyay waxbuu qorsheeyay waxbuu ku talagalay cilmi baaris buu sameeyay shirka inuu kaga qayb galu doonay markay saacada ka harsanaayeen baa tii soo timi waxa kale oo la socotay oo isla maalinka mise maalinkii ku xigay dhacay ninkii waxa weeye boosaaso ka soo degay murashaxa Allahu naxariiso dhamaantood boosaaso intuu ka soo degay khudbadeeyay ay iclaamiyay inuu yahay murashax madaxweyne maamul goboleedka Puntland saacada ka bacdina iyadoo laamiyada loo taagan yahay oo ummadii sugayso oo laga qadadii looga diyaariyay qarno oo lalihii sana uu ka bilaabay ayaa waxa weeye tiisoo timi oo Allah subhanahu wa ta'ala naftika qaaday waxbuu qorsheynay waxbuu isu diyaariyay ilaahayna nolol kale ayuu diyaariyay xaaladda saddexaad waa wasiiradii iyadoo safar shaqo Djibouti u joogta dowladda federaalka Soomaaliya shir u timi qorshe u socotay caafimaad ku timi si kadisa loo qabtay markiiba naftu ka baxday waa weyna inoo muuqanaysa wey dhacdooyinka badan aynu la noolahayna ciidda ka badan ilaahayna waxbuu qorsheeyay ajashaadiya wadkaagii xad buu u sameeyey adiguna waxa weeye qorshayaal baad leedahay hadday iska hor timaadana taa la soconaysa wuxuu alla leeyahay fa idaa jaa ajaluhum muddadoodu markay timaado laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun in yarna loo dibdhigi maayo waqtiga ay haysteenna in yarna loo soo hormarin maayo oo loo soo qadimi maayo waa xaqiiqa aynu waxa weeye la noolahay in lagu cibro qaato in lagu waantoobo in lagu xasuusto nolosha dambe ku sugaysa inay kugu keento Allah subhanahu wa ta'ala inaad soo noqoto in tawbada la badiyo amalka wanaagsan la badsado Allah subhanahu wa ta'ala lagu xidhnaado hadii qalbigaagu xilliyada qaar uu ingago daciifo waa bashar baynu nahay waa gafayna nuqsaani kugu timaado inaad isa soo daba qabatayso oo Allah subhanahu wa ta'ala aad soo noqoto